kusoo dhawaada muuqaal cusub oo ka hadlaya casharada nolosha. Noloshu waxay bartay in waxa ugu qaalisan ee qofku haysta yahay waqtiga iyo wanaajinka faa'iideysiga waqtigaaga. Noloshu waxay bartay dhaqan ama mabda aad u muhiim ah oo ah dhaqanka tareenka, kaasoo ah ha sugin cidii aan ku sugin, sidaa awgeed ahaw mid suga fursadaha nolosha. Noloshu waxay bartay ixtiraam ha lagu ixtiraamo, ha iska weynin dadka hana liidin. Noloshu waxay bartay in farxadu tahay dhoola cadeynkaaga timaado qof kuu dhow xilli adag, sidaa awgeed u dhoola cadeed dadka kugu xiran. Ha dhibsan maalmaha ku soo mara, waayo tan wanaagsan waxay ku siisaa farxad, ta murugada lana khibrad iyo waayo aragnimo, halka ta adagina ay ku barto cashar. Noloshu waxa kale ay bartay inaanan ku tiirsanaan cidaan Ilaahay hayn, waayo saaxiibku wuxuu noqday naadir ama dheef, kii la jeclaa wuxuu noqday mid tegaya, kuwii dhawaana waxay noqdeen ku meel gaadh. Ilaahay oo keliya ah qaadir. Haddii ay dunidu noqoto bad walwal ah, waxaad kaga gudubtaa dooni samira. Noloshu waxay bartay in furaha guuldarradu yahay isku dayga raaligelinta shaqsi kasta oo aad garanaysid. Waxyaabaha dadka isku keena ayaa ka badan waxyaabaha kala fogeeya. Haddaad u baahan tahay qof kula rafiiqa nolosha, waxaad heli kartaa un markaad ka laabatid indhahaaga ceebihiisa, aqbashidna khaladaadkiisa. Waa keekaynaga midkaa dhammayska tiran, hubaal ma jiro qof dhammaysan. Sidoo kale noloshu waxay bartay inaan u jilicsanaado sida caleenta, u adkaado sida jirida geedka, una wanaagsanaado sida cadarka. Casharada noloshu aad ayay u badan yihiin, mana aha kuwo lagu soo koobi karayo qoraal iyo hadal midnaba. Sidaa awgeed dhegeyste, nala wadaag cashar aad u muhiim ah oo nolosha ku bartay. Aad ayaad u mahadsantihiin.